waxaan idin ballan qaadayaa inaan aqbali doonin in la cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda ah nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantii maadaama uu nagu dhacay qaranjab waxa ay keentay qalbi jabkaasina waxa uu keenay qaawanaan qarannimo qaawanaantaasi waxay banaanka soo dhigtay ceebaheen sababtaadu maqlayso waxa isdagaalsan aan heshiisayn culimada ama dhalinyarada ama ganacsatada ama haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabarka ummadda Soomaaliyeed ah laba ruux jecelo laysku xantanaayne diban male adduunyadu laakiin kama filaanay anigu waxba ma samayne sababta adiga lahaayena sisaaka intaad ka dayso sidaan doonaya garo tanina waaya ummadda Soomaaliyeed aan rabaa markii mustaqbalka la yiraahdo muxuu Xasan Khayre ku soo kordhiyay shaqada wadankan kaliya hal mid in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay hatta haddii ay kalifayso run sheegiddu inaan shaqadayda ku waayo diyaar baan u ahay